صاحب هذا بيجك كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا سهلا يا رب العالمين. كل تونسان صاحب يا الواطحنين وكساب سنة نفقد درت أباهن تحي ما أنت وحن برندو أن هدي إلهي يراهدو أما أنقاذن دون 10 كي 5 طبنات 10 كي 5 طبنات وحو كساب سنة هي عريها مقعي شل يراهدو نكال نانيست عريها النكال وان اي أما na-i waa curyaha 8 ee kalgalka curyayaasha. Nikel waa bir ka mid ah curyayaasha kala guurka ee kalgalka curyayaasha. Tira atomkiisu waa 8, culays atomkiisuna waa 58.693. Kaaftoonkiisuna waa 2 ama 3. Nikel wuxuu muhiim u yahay koriimada dhirta. Sida caadiga ah nikelku wuxuu ka yahay nudayaasha geedka 0.05 ilaa 5 ppm eber 5 ilaa 5 ppm ayuu ka yahay. Ereyga ppm waxaa loola jeedaa part per million oo macnaheedu yahay qayb ka mid ah 1 milyan. Badanaa tira yar oo nikel ah ayaa ku jirta carrada, biyaha iyo bacrimiyeyaasha. sidaa daraadeed yaraanta nikel ee dhirta waa arrin aan caadi ahayn. taa macnaheedu waa maxay? in la arko astaamaha yaraanta nikel inay ka muuqato dhirta waa arrin aan caadi ahayn, macnaha arrin badan ama joogto ah ma ahan. waayahay shaqada nikel maxay tahay? curyaha la yiraahdo nikel shaqadiisu maxay tahay uu geedka ka qabto? nikel wuxuu qayb ka noqdaa qaar ka mid ah enzymyada dhirta. enzyme waa isku dhisyo kiimikaad oo shaqadoodu tahay inay fududeeyaan falgalada ka dhacaya geedka dhexdiisa. waxa ugu caansan enzymka la yiraahdo urease kaas oo u bedela nitrogenka ku jirta ureada ammonia ku haboon isticmaalka geedka dhexdiisa. haddii aan nikel jirin ama geedka nikelku ka maqan yahay waxaa suuragal ah in ureadu ku ururto nudayaasha geedka oo ay gaarto xad sunnimo ah. waa maxay calaamadaha muujinaya in nikel ku yar yahay geedka? nikelku inuu ka mid yahay canaasirta ama curyayaasha yaryar waxaa la ogaaday dhowaan. sidaa daraadeed wax badan lagama yaqaano calaamadaha yaraantiisa. nikel wuxuu ka mid yahay curyayaasha geedka dhex socda. sidaa daraadeed yaraantiisu ugu horeyn waxay ka muuqataa caleemaha hoose ee duqoobay. 2 digiraha caleemaha ayaa gebi ahaan jaalle noqda. macnaha caleenta geedka digirta ayaa gebi ahaan waxay noqonaysaa jaalle iyadoo ay barbar socoto caleemaha oo darfaha ka dhimanaya. 3 caleemaha xajmigooda iyo koriimadooda ayaa yaraata sida geedka dhinaca midig ku yaala nooga muuqata. 4 geedka nikel yaraantu hayso iniyihiisu ma dhashaan ma biqilaan. macnaheedu waa maxay? geedka nikel yaraantu haysa miraha uu dhalo haddii la damco in la abuuro ma soo dhashaan. hadday soo dhashaanna mana koraan si ay u noqdaan geed caafimaad qaba. 5 mararka qaar geedaha nikel yaraantu hayso waxaa ku dhaca caleemaha cusub jirada la yiraahdo cagaarashada. macnaha caleemaha cusub ayaa waxay noqdaan cagaar saa'id ah. macnaha caleemaha cusub oo hadda soo baxaya oo la rabay cagaar furan inay noqdaan ayaa waxay noqonayaan cagaar saa'id ah. labadan geed labada waxaa ka muuqda astaamaha nikel yaraanta ka muuqata. caleenta dhinaca bidix fiida sare ayaad moodaa in laga gubay waana calaamadaha muujinaya in nikel uu ka maqan yahay. caleenta dhinaca bidix dhinaca midig waxaad arkaysaa caleemihii oo yaryar oo koriimadoodu liidato. taa macnaheedu waxaa weeyaan in nikelku ku yar yahay. halkan waxaa nooga muuqda 2 geed oo kala duwan, mid caafimaad qaba iyo mid xaaladiisu aysan caadi ahayn. digirta loo yaqaan lubia dhinaca midigta markaad fiiriso calaamadaha yaraanta nikel waxay u egyihiin kuwa nitrogenka. sida nitrogenka oo kale ayaa caleemaha hoose midabkoodu waxay noqdeen jaalle iyada oo ay caleemuhu darfaha ka dhinteen. waxaad arkaysaa caleemaha hoose darfaha inay kasoo dhimanayaan. marka caleemaha nikel yaraantu digirta loo yaqaano lubia waxay shabihi doontaa ama u eg tahay maxaa yiraahdaa
calaamadaha yaraanta nitrogen. halkan waxaa nooga muuqda nooc ka mid ah digiraha oo la yiraahdo digirta la yiraahdo soya. caleemaha digirta soya nickel yaraantu ma ka muuqato waxaa gubta caleemaha, macnaha tani waa caleenta digirta soya ay ka muuqato nickel yaraantu waxaa gubanaya caleemaha darfahooda. waad arkaysaa darafka fiida caleenta waxaad moodaysaa in la gubay, caleemaha darfahooda ayaa gubta, waxaana ugu wacan yuuriyada ayaa ku ururta, yacni yuuriyada zaa'idka ayaa halkan ku ururaysa, marka meesha waxaad moodaysaa meel la gubay. nickel wuxuu lama huraan u yahay samaynta enzymka urease oo burburiya yuuriyada. yuuriyadu wuxuu u bedelayaa ammoniyadaas oo si sahlan dhirtu u isticmaali karaan. جزاكم الله خيرا. عشر كلمات انت سكو اجيهاي واندين مهد علينا هدي عاد 10 وحونك فايدي فضلا هاي المامن ان دي بيج كتراهديد سبسكرايب ان تراهديد ان لايك تراهديد ان لو ذاك اصحابتك كله مره لبعض باندين مهد علينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.